Naag Talyaaniya baa ninkeeda dharbaaxa ku jiiday. Halkii ay ka dharbaaxday inta uu qabsaday ayuu wuxuu yidhi, Baby, maxaa dhacay? Naagtii waxay tidhi, awalba waan ogaa inaad i jeceshahay. Kadib ayay u qosashay, iljabisna dhac ayay uga siisay. Xaliimo Soomaali ayaa damacday inay sheekadaas koobi iyo baasti ku samayso. Ninkeedii oo fadhiga isku kala bixiyey bay dharbaaxo hoo iga qabsa ah ku jiiday. Wash! Marxuumadda markii meydkeeda la mayrayay, afkeedii hal iligna looguma tegin, isheedii midigna ilaa ay hadda lama helin. Sheekada saddexaad. Gabar 18 sano jir ah baa hooyadeed u sheegtay inaanu 2 bilood dhiig caado ah ka imaan. Markii la baaray waxaa la ogaaday inay uur leedahay. Hooyadii xanaaq ma ahee naftaa ka bixi gaadhay, waxayna tidhi, doofaarka xun, taas haddaan uga haro, na ii sheeg, isagaan mar damba gabdho Islaameed ku ciyaari doonine. Gabadhii taleefan bay qabsatay oo garaacday. Nusi saac kadib guriga hortiisa waxaa soo istaagay gaari Ferrari ah. Nin 50 jir ah, tin cad leh, muuqaal qurxoon, suud xiran baa inta Ferrarigii ka soo daadegay gurigii galay. Qolka fadhiga intuu aabbihii, hooyadii iyo gabadhii la fadhiistay wuxuu yidhi, subax wanaagsan, gabadhiinu way ii sheegtay dhibka dhacay. Anigu guri ma geysan kara iyada sababo la xiriira dhibaatooyin qoys oo i haysta aawadood, hase yeeshee mas-uuliyadda anigaa qaadaya, qarashka oo dhanna anigaa bixinaya, gabadhiinana anigaa nolosheeda inta ka hartay biilaya. Intaas waxaa dheer, haddii ay gabar dhasho, waxaan ku abaalmarinayaa gaari Ferrari ah iyo fillo xeebta ku taal, 2 milyanna akoon baan ugu shubayaa. Haddii ay wiil dhasho, waxay helaysaa dhowr warshadood iyo 4 milyan oon akoon ugu shubayo. Haddii ay mataano noqdaan, kiiba 2 milyan baan ku abaalmarinayaa. Haddiise ay ilmuhu ka soo dilmaan, adinku maxaad igula talin lahaydeen inaan sameeyo? Aabbihii oo intaas aamusnaa, inta uu ninkii gacanta garabka ka saaray buu wuxuu ku yidhi, markaas waa inaad mar kale ku daydid. Astaghfirullah.